السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوضي الميل والباد جوكتان قضبضا أدوراركنا كمغلي دونتانا وحاكم دا حالة السياسة دي دالك الصوماليا يا مالين كدام لسو شيغيو ليه هوري سردونك قرنك فهد ياسين حاجي داهر انو سو غاري مغالة مقدشو سيدو كلا واوين بلارن ايا وحاي كدح سعوتا مدحوينها يا رئيس الوزراء يدو لسو شيغيا حالدو اناي ميل في عن مريسو سيدو كلا قدوميها أقل كسره مدحلت كيسي دماذي وعبد حاشي عبد الله يا مهدي محمد جولده أيا وحي صوصارن قلها أقل كسره برلمانك أو قيب قليا حالدي دلك إثيوبيا يا معلم بميلو حالده دلك إثيوبيا يا دجالدي هالكي ونكسر السودان أيضا لسوشيء إذا ماذا حمارة يملترجو إن يكون دجال ما ينقل بلارن وكسرن دولة كم مجال غوندر سلوك التي بيلفي دجال كي دولة فدرال كود حياة أيا هالكي سيون كسر السودان qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida ergeyga Mareykanka u qaabilsan dalka Itoobiya ayaa la soo sheegay inuu gaaray dalka Turkiga asagoo la soo sheegay inuu Turkiga kala hadlayo taageerada ay militariga dalka Itoobiya siiyaan qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaad wararkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxa ay ku beegantahay 21 bisha 9 2021 hadaynu guda galo wararkeena oo faahfaahsan dalka Soomaaliya maalinka ka dambaysa waxa ka sii daraya xaaladda siyaasadeed u dhaxaysa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khilaafkan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay ku soo bilowdeen xilligii la waayay gabadhii gargalada ahayd Ikraan Tahliil waqtigii ay hay'adda NISA shaacisay Ikraan Tahliil inay kooxda al-shabaab gacanta u gashay ayna kadibna ay khaarijiyeen ayaa waxa soo baxay khilaaf weyn oo u dhaxeeya saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa taliyaha NISA wa Fahad Yaasin waqtigaas ayaa u qabtay 48 saac inuu ka soo jawaabo una shaaciyay arintaasi meesha ay ku dambeysay iyo gabadha xaaladeedii kadib taliyaha NISA wa Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa codsaday in loo ballamiyo golaha amniga qaranka uu halkaana ka shaacin doona xaaladda gabadha ayadoo arintaasi la wada sugay ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu shaqadiisii hakad galiyay taliyaha NISA wa Fahad Yaasin Xaaji Daahir kadib arintaasi markuu ra'iisul wasaaruhu ku dhaqaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay inayna arintaasi waxba ka jirin Fahad Yaasin uu shaqadiisii wato sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu taliyaha NISA u magacaabay General Gobe uu ku sheegay inuu shaqadaasi sii wato kumeel gaara madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa aqbalay ka qaadidii xilka Fahad Yaasin asagoo u magacaabay taliyihiisa amniga qaranka sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu magacaabay taliyaha NISA korneyl kale oo taliyaha amniga NISA ee gobolka Banaadir ayadoo maalinka ka dambaysa ay ka sii dareysay xaaladda siyaasadeed ee dalka madaxweynaha iyo u dhaxaysa ra'iisul wasaaraha ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay haddana inuu wasiirkii amniga gobolka Banaadir xilkii ka qaaday arintaasi marka ay dhacday ayaa kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxa uu sheegay inuu hakiyay awoodii ra'iisul wasaaraha ee doorashooyinka maalinka ka dambaysa ayadoo xaaladdu ay sii xumaanaysay ayaa madaxda maamul goboleedyada waxay soo saareen shir ay ku sheegeen inuu ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland shirkaas oo looga hadlayo doorashooyinka Soomaaliya iyo khilaafaadka ka dhex jira madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kadib waxa dhacday inay si gooni ah soo arkaan madaxweynaha Galmudug iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble arintaas oo lagu hakiyay shirkii ka dhici lahaa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland sidoo kale waxa la soo sheegay taliyihii NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir inuu soo gaaray magaalada Muqdisho maanta barqinimadii 3 subaxnimo Fahad Yaasin ayaa loogeyn waxa uu ku soo kordhin doono siyaasadan cakiran ee ka tagan magaalada Muqdisho ee dhaxaysa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Fahad Yaasin oo lagu yaqaan inuu kala furfuro xaaladaha cakiran markasta iska qabsiga xaggan uu cilmi dheer u leeyahay ayaa soo gaaray maanta magaalada Muqdisho sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya ee muddaxileedkiisu dhamaaday waa Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Guleed ayaa waxay soo saareen golaha baarlamaanka uga qayb galaya waqooyiga Soomaaliya aqalka sare federaal
golahaas oo lagu sheegay ugu yaraan 11 xubnood inay ka soo baxaan lagu wadaya waxaa la soo sheegayaa hal kursi inuu xirtay cabdi xaashi ayadoo la soo sheegay guddiga doorashooyinka heer federaal inay ka fadhiisteen arintaasi qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah ciidamada axmarada ayaa waxay weeraro ballaaran ku hayaan ciidamada militariga ee la dagaalamaya TPLF ciidanka axmarada ayaa maalinkii saddexaad waxay dagaal kula jireen ciidamada militariga ayagoo aan la garanin ujeedada ay kala yihiin dagaalkan ay ku hayaan militariga dalka Itoobiya militariga dalka Itoobiya oo dagaal xooggan kala horjeeda kooxda TPLF ka dagaalamaysa galbeedka dalka Itoobiya ayaa haddana waxaa ugu doortay ciidamadii axmarada ee ka garab dagaalamayay markii hore militariga dalka Itoobiya ciidamada axmarada ayaa waxa ay ku doodayaan inay militariga dalka Itoobiya dagaalka daacad ka ahayn ayna ka ahayn dagaalkani inay ka xoreeyaan TPLF ay kala yihiin inuu maalinka ka dambeeya dagaalku ka sii horo galbeedka dalka Itoobiya madaxweynaha axmarada ayaa horey ugu baaqay inay shacabka axmaradu dagaalka wada galaan TPLF-na iska xoreeyaan ayadoo sida la wada ogsoon yahay qoomiyadda axmaradu ay ka badan tahay qoomiyadda Tigrayga oo lagu qiyaaso inay axmaradu ugu yaraan 25 milyan ay dhan tahay ayadoo qoomiyadda Tigrayga lagu sheego ugu yaraan 6 milyan dagaalkan u dhaxeeya dowladda federaalka iyo huwanta ay goominayso iyo TPLF ayaa maalinka ka dambeeya ka sii daraya qoomiyadda axmarada ayaa waxay ku cabanaysaa inay dowladda federaalka mas'uul ka tahay dagaalka ka socda galbeedka dalka Itoobiya haday ujeesadana ay ku soo afjari karto dagaalkaasi waqti yar sidoo kale ciidamada TPLF ayaa dagaal xooggan saakan waxa ay ku qaadeen militariga dalka Itoobiya ee ku sugan magaalada Ibnad oo dagaal xooggan maalinimadii shalay ka dhaceen ayaa la soo sheegay inay gacanteeda ku hadhay dowladda federaalka hase yeeshee subaxnimadii saaka ay dagaal xooggan soo qaadeen TPLF dagaaladan ayaa maalinka ka dambeeya ka sii daraya iyadoo TPLF ay ku wada inay gebi ahaanba dalka oo dhan gacanteeda ku dhigto sidoo kale ergeyga Mareykanka ee u qaabilsan dalka Itoobiya ayaa la soo sheegay inuu maanta ka degay magaalada Istanbul ee caasimadda dalka Turkiga ninkan u qaabilsan dalka Mareykanka Itoobiya ayaa la soo sheegay inuu Turkiga kala hadlayo inuu xaaladda dejiyo taageerada uu taageerayo kooxdan uu Abiy hogaamiyay inuu joojiyo maadaama dalka Mareykanku uu ku tala jiro inuu xabadda dalka Itoobiya ka socoto sida ugu dhaqsaha badan la soo afjaro dalka Mareykanka ayaa ku waday in looga dambeeyo dagaalada xooggan ee dalka Itoobiya ka socdo inuu asagoo u dejin karo maadaama dalka Mareykanku dhaqaalaha ugu badan uu ku bixin jiray dalka Itoobiya sidoo kale madaxda TPLF ayaa la soo sheegay inay dalka Suudaan kula shirayaan saraakiil ka socota dalka Mareykanka TPLF ayaa la sheegay inay taageero weyn ka haysato dhanka Mareykanka oo Mareykankuna ku garab taagan yahay dagaalada ay kula jirto dowladda Abiy Ahmed tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.